السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود واضح أدي هذا وما سنتين مانت وسبتي وأنا شنية طبعا كبيشة كوبي طبعا هذا نوفمبر سنة كلا بدأ كون إيه شنية لباتنك ورنيكي ترام ها هيت كجاري هبل هيت كجاري مقلد درتين كليل كجاري مركي حبنا الديمقراطيين تا جدرا جدي على حساب تنك أقل كوكيلة الأربعة دي أي ترام سوق رحيين ninkii Trump ahaa wasaaradda cadaaladda ayaa shalay waxa uu ku amray in baaritaan ay ku sameyso xiriirka ninkii Jeffrey Epstein ahaa iyo xubno dimuqraadiyiin oo madaxweynihii hore Mareykanka Bill Clinton uu ka mid yahay iyo hay'ado kale in baaritaan ay ku sameyso wasaaradda cadaaladda iyo FBI-du ay ku sameeyaan wasiirka cadaaladana isla markii dacwad ooga ay magacowday arrintaasi baaritaan ku sii sameeyay laakiin arrinta waxa ka sii dartay markii Trump xalay qoraal dheer uu ka soo qoray xildhibaanada ay sida aadka ah isugu dhawaayeen ee Marjorie Taylor Greene oo laga soo doorto gobolka Georgia uu yiri taageeradeydii waan kala laabtay kursigeedana qofka kale ee isku soo sharaxo ayaan taageeri doona Marjorie Taylor Greene way u soo jawaabtay haddaba dagaalkoodu muxuu salka ku hayaana waan idinla wadaagayaa arrimahaasi arrimo kale ayaan la socodsiinayaa balse marka hore soo dhawaada aan ogeyn xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira guddiga la xisaabtanka ee aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka in ay soo bandhigeen emailo muujinaya in xiriir uu ka dhaxeeyo Trump iyo waliba ninkii Jeffrey Epstein ahaa xiriirkaasi waliba Trump uu ogaa dhibaatooyinka gabdhaha loo geysanayay Jeffrey Epstein emailada la soo bandhigay waxa kamid ah xitaa inuu leeyahay bal ninka guriga ii ilaaliyo weydiiya Trump waxa la arkayay qofku markuu maartay miraayad xiran oo dad gudaha ku jira oo ka fiirinayo kale wuxuu yiri Trump iridda ayuu intuu soo istaago sankiisa wuxuu ku sawirnaa miraayadda iriddeeda macnaha isagoo wax fiirinaya mararka qaarna waxa uu yiri gabdhaha ku dabaalanaya barkada ayuu si toos ah u soo aadayay albaabkii oo xiran ayuu xitaa ku dhacayo mir ma uusan lahayn waxa uu sidoo kale sheegay in dad badan oo xun uu la kulmay laakiin Trump uu kamid ahaa dadka ugu xun uu la kulmay isla markaana uu qatar yahay waxa uu kale yiri aniga ayaa ah qofka kaliya oo Trump dhulka la gali kara macnaha fara badan ayaan ka hayaa ay macnaheedu u dhigantaa marka ninkii Trump ahaa markii emailadaasi ay soo baxeen ninkii Trump ahaa hiidka ayaa gaaray waa la soo qarxiyay hebel maqli jirtay marka waa xanaaqay xitaa maalmihii u dambeeyay uu jeclaan jiray markuu shir jaraa'id qabto ama wareegtooyin in wariyaasha su'aalo ay weydiiyaan maalmihii u dambeeyay arrintaasi waa uu ka gaabsanayay haddaba shalay oo jimco ahayd ayaa bartiisa Truth Social-ka qoraalkan uu ku soo qoray uu leeyahay xubno dimuqraadiyiin oo muhiim ah wasaaradda cadaaladda iyo FBI-du waa inay baaritaan ku sameeyaan Trump wuxuu yiri hadda dimuqraadiyiintu waxay isticmaalayaan arrintan been abuurka ah ee Epstein oo iyagu ay ku lug leeyihiin ma ahan Republicaanku inay ku lug leeyihiin waxayna doonayaan dareenka dadka inay ka wareejiyaan arrintii dawladda xirnaashaha oo ahayd mid masiibo oo dimuqraadiyiintu ay sababeen dimuqraadiyiinta ayuu ku eedeynaya marka waxa uu leeyahay dhammaanba guuldarooyinkii kale ee xisbiga dimuqraadiga waxaan weydiisanayaa wasiirka cadaaladda Pam Bondi iyo wasaaradda cadaaladda madax ka ah isla markaana wadaniyiinta FBI-du in ay baaritaan ku sameeyaan Jeffrey Epstein xiriirkii uu la lahaa iyo ku lug lahaashihiisii Bill Clinton waa madaxweynihii hore Larry Summers waa nin wasiirka maaliyadda ahaa xilligii Bill Clinton uu madaxweynaha ahaa Reid Hoffman waa nin ganacsadaha JP Morgan waa kambanigan weyn ee bangiga ee Chase la yiraahdo iyo sidoo kalena waxa uu yiri dad kale iyo hay'ado kale si go'aan looga gaaro maxaa ka dhaxeeya Jeffrey Epstein iyo dadkan marka ninkii Trump waxa uu leeyahay sidoo kale arrintan waxa ay la mid tahay hadda Jeffrey Epstein arrintii Russia Trump xilligii 2016 in doorashooyinka ay gacan ku siiyeen Ruushka oo xitaa in xilka qaadis lagu sameeyay laakiin markii dambe aqalka sanadku ay arrintaasi diideen marka waxa uu leeyahay sidoo kale dhammaanba fallaaruhu waxay tilmaamayaan oo ay eegayaan dhinaca dimuqraadiyiinta waxa uu yiri raggaas iyo waliba kuwa kale oo badan in waqti aad u fara badan ay Epstein la qaateen waliba jasiiradiisa ay kula qaateen stay tuned bal ila socda ayuu leeyahay halkan ayaan ku soo gudbin doonaa Trump marka wasiirka cadaaladda markuu arrintaasi ku amray isla markiiba wasiirka cadaaladda waxay tiri yes boss oo amarkiisi ayay qaadatay waxaana ay magacowday nin dacwad oga ah oo dhinaca New York ka tirsan oo la yiraahdo Jay Clayton oo ay tiri bal arrintaasi baaritaan ku soo sameey Trump markii uu tartanka ololaha doorashada ku jiray oo Biden oo madaxweynaha ahaa waxa uu dhahayay waxa lagu xadgudbayaa awoodda wasaaradda cadaaladda oo la isticmaalaya waliba FBI-da oo aniga ayaa la adeegsanaya laakiin hadda sida muuqata isaga ayaa adeegsanaya
wasaaradda cadaaladda iyo FBI-da oo dadkii ka soo horjeeday ayuu waxa uu leeyahay baaritaan ha lagu sameeyo. marka arrimahaasi markii ay dhaceen kadib oo shalay qoraalkaasi uu soo qoray wasiirka cadaaladuna ay tiri tallaabadaasi waan qaadayaa oo baaritaanka waan samaynayaa, ayaa haddana mar kale waxa uu dagaal ka dhex qarxay madaxweyne Trump iyo sidoo kale mid ka mid ah xildhibaanada ay sida aadka ah isugu dhawaayeen oo sida aadka ah u taageeri jiray. waxaa la yiraahdaa Marjorie Taylor Greene, degmada 14aad ee gobolka Georgia ayaa laga soo doortaa. Marjorie Taylor Greene waxay ka mid tahay 4 xubnood oo Republican ah oo saxiixay mooshinka lagu dalbanayo in Epstein files la soo fasaxo. xildhibaanadaasi 4 ah waa 4 xubnood oo Republican ah, dhammaantoodba waxay ku raaceen 14 xubnood oo dimuqraadiyiin ah in Epstein files kaasi muddo 30 maalmood gudahooda la soo bandhigay. hadda dadka qaar ayaa waxay soo jeedinayaan in xitaa madaxweynuhu uu veto isticmaalo walow sanadka aqlabiyadiisa uu isagu leeyahay. 4taas xubnood oo Republicanka oo dimuqraadiyiinta 14 ku raacay mooshinkaasi saxiixiisa waxay kala yihiin Thomas Massie oo laga soo doorto gobolka Kentucky, Marjorie Taylor Greene oo laga soo doorto Georgia, Nancy Mace oo South Carolina laga soo doorto iyo Lauren Boebert oo laga soo doorto gobolka Colorado. marka Trump waxa isaga caado u ah qofka ka soo horjeesta in uusan mar kale Congress-ka uusan ku soo laaban. hadda waxa uu leeyahay 4 xubnood doorashooyinka Israa'iilka maadaama sanadka soo socda dhamaadkiisa doorashooyinka xilliga dhexe ay dhacayaan, doorashooyinka Israa'iilka xubnaha kale ee soo sharaxa oo la tartamayo ayaan taageeraya ayuu leeyahay. marka 4taas xubnood gabi ahaanba waa ka soo horjeesteen Trump. marka Trump xalay bartiisa Truth Social-ka waxa uu dagaal cad ku qaaday Marjorie Taylor Greene oo xubnaha ugu taageerada badan ka mid ah. Marjorie Taylor Greene maalmihii u dambeeyay maadaama Fox News oo dhinaca midigta fog ah laga mamnuucay, waxa ay waraysiye siinaysay showga la yiraahdo The View oo gabdho oo kaliya ay daadihiyaan iyo waliba CNN-ka oo labaduba dhinaca bidixda. marka Trump waxa uu xalay bartiisa Truth Social-ka ku soo qoray qoraalkan. Marjorie Taylor Greene way u soo jawaabtay oo jawaabtaasina waan idinla wadaagaya. Trump waxa uu leeyahay waxaan dib ula laabanayaa taageeradii aan horay u siiyey haweeneyda la yiraahdo oo Congress-ka ka tirsan oo Marjorie Taylor Greene oo gobolka weyn ee Georgia ka soo jeeda. Toddobaadyadii ugu dambeeyay anagoo sameynay guulo fara badan oo wadankeena aan u soo hoynay oo ka mid tahay in aan shutdown-gii aan ka guuleysanay dimuqraadiyiinta waa xirnaashihii dowladda, xadkeena aan xirnay, canshuurta aan hoos u dhignay, ragga aan ka mamnuucay ciyaaraha haweenka inay ciyaaraan iyo waliba arrinta transgenderka dadkan isbedelaya iyo waliba sidoo kalena aan hoos u dhignay arrimaha inflationka ama sicir bararka, soona gabagabaynay DAI-da. DAI waxaa la yiraahdaa dadku qofku markuu dad shaqaalaysiinayo in uu isku dheelitiro cadaanka, dadkan madowga, dadkan latinoga. macnaha arrintaasina oo Biden uu yiri oo soo saaray inaan meesha ka saarnay, isla markaana sidoo kalena aan 8 dagaal aan joojiyay. Trump waa uu ku faanaya arrintaasi wali militarigeennana uu noqday mid hadda la qadariyo, militarigeennana aan dib u dhisnay, isla markaana wadankeena uu noqday hadda wadan caalamka laga qadariyo sidaasi oo ahaydba inuu markii hore ahaan lahaa. waxaana sidoo kale sheegay in markii hore lagu qosli jiray 12 bilood ka hor wadankeena, waa sida isagu hadalku u dhigay intii Biden uu ahaa wadankeena waa lagu shactiraysan jiray, waa lagu qosli jiray ayuu leeyahay. waxaan sidoo kale uu leeyahay aan wadanka aan u soo hoynay in trillions of dollars oo waliba lacagtii ugu sarreysay wadanka in lagu maalgashto ah Mareykanka. waxaa sidoo kale sheegay in uu sameeyay wadanka hadda ugu cadcad guud ahaan caalamka, markii horena wadankeenu waxa uu ahaa yiri wadan dhintay 12 bilood ka hor. marka arrimahaas oo idil anoo sameeyay ayaan hadda waxa arkaayo leeyahay Marjorie Taylor Greene in ay on cabasho kaliya ay wado. marka arrintaasi ayuu leeyahay waa ay cabanaysaa markasto. hadalkiisaasoo sii wata ayuu yiri hadda waxay u muuqataa ayuu yiri markii aan u diray afti muujinaysa in aysan soo bixi karin haddii ay u tartamto senator ama gudoomiye gobol, macnaha inay danaynaysay inay senator u tartamto amaba gudoomiye gobol oo 12% ay haysato fursad ah. ayaa waxa uu leeyahay haddii aniga aysan taageeradeeda aysan helin, waxa muuqata hadda yiri in dad fara badan ay u sheegtay in ay ka xun tahay in Trump uusan ka jawaabaynin marka ay soo wacdo. waxaan haystaa ayuu leeyahay 219 xubnood oo rag iyo dumar oo Congress-ka ku jira, 53 xubnood oo senatorisa, 24 xubnood oo golaha wasiirada iyo 200 oo wadan oo aan heshiis la gaaray. marka dhinaca wuxuu ka wadaa taariiftii heshiisyada ganacsiga. sidaas darteed waxa uu yiri ma qaadan kara ayuu yiri in qof iska qaylinaya oo waalan telefonkiisa kama jawaabi kara. waan dareensanahay ayuu yiri in dad badan oo muxaafada oo aad u wanaagsan ay jiraan, isla markaana ka fikiraya in doorashooyinkaas
ay la tartamaan Marjorie Taylor Greene oo degmadeeda Georgia ay kula tartamaan. Waxa uu sidoo kale sheegay in dadkeeda degmada laga soo doorto ee Carter ay ka taagan yihiin. Sidaa darteed qof ku wanaagsan haddii uu tartamo wuxuu yiri waan taageeri doonaa aniga oo aan ka labalaynin maxaa yeelay Marjorie Taylor Greene dhinaca bidixda fog ayay la safatay. Wuxuu yiri waxay hadda wareysiyo siinaysaa The View oo waa showgii aan idin sheegay oo gabdhaha kaliya ay wadaan iyo sidoo kaleba oo low IQ dad maskaxdoodu aad u hooseyso ay daadihiyaan gabdhaha ayuu caynaya oo The View wada. Thank you waan idinka mahad celinayaa arrintan dareenka aad siinaysaan Make America Great Again ayuu ku soo gabagabay. Marka ninkii Trump ahaa Marjorie Taylor Greene markuu sidaas u weeraray iyadiina waa ay soo jawaabtay isla markiiba hore ayay ka soo jawaabtay. Waxay tiri madaxweyne Trump hadda ayuu soo weeraray been ayuuna iga sheegay anigu ma aanan wicin gabi ahaanba laakiin waxaan u diray fariin qoraaleedyo maanta arrintaasina waxay u muuqataa inay tahay midda ka careysiisay. Waxay tiri The Epstein Files ayay tahay arrinta uu ka careysan yahay. Waxay sidoo kale sheegtay sababta aniga uu sidan aadka ah igu daba dhigtay waxay tahay in uu tusaale ahaan u soo qaato isla markaana uu ka qalqalsiiyo xubnaha kale ee Republicaanka ee toddobaadka soo socda doonaya inay u codeeyaan in la fasaxo Epstein Files. waxay tiri waxa wax lala yaaba ah in Trump uu sidan aadka ugu dagaalamayo inuu joojiyo in la soo fasaxo Epstein Files toddobaadyada soo socda. Arrintaasi uu heerkan u gaaray inuu u dagaalamo. Laakiin waxay tiri run ahaantii inta badan dadka Ameerikaanka waxa ay danaynayaan in uu sidan ugu dagaalamo in uu ku caawiyo haweenka iyo ragga la hilmaamay ee Mareykanka ah kuwaasi oo qaatir ka taagan ayay tiri dagaalada iyo sababaha kale oo wadamada ajnabiga ah oo Trump uu gacanta siinayo. Dad fara badan hadda waa ay shiideen ama waa ay musallafeen qoysas badanna ma haystaan waxa ay cunaan. Waxay sidoo kale luminayaan rajadoodii ahayd in ay ku guuleystaan the American dream ama riyada Mareykanka. Waxay tiri arrintaasina waa waxa anigu aan u codeeyay. waxay tiri waxaan madaxweyne ku taageeray waxa ugu qaalisan oo ah waqtigeyga lacag fara badanna waan ku bixiyay aad ayaan ugu dagaalamay xitaa marka inta badan xubnaha Republicaanku ay dhabarka u jeediyeen ama sidoo kale ay deeriyeen. Laakiin waxay tiri arrintan waa arrinta ugu muhiimsan. Waxay tiri anigu ma caabudo mana u adeego Trump waxa aan caabudaa ayay tiri Ilaah amaba Ciise Jesus sida ay leedahay oo badbaadiyahayga ah. waxaana sidoo kalena aan u adeegaa dadka degmadeeda 14aad ee gobolka Georgia iyo waliba shacabka Mareykanka. waxaana ahaan doonaa ay tiri sidaan weligeeba ahaa waxaanan sii wadi doonaa in aan u duceeyo maamulkan in uu guuleysto maxaa yeelay dadka Mareykanku waxa ay u qalmaan in wixii ay u codeeyeen. sidaa darteed waxay tiri aniga waxaan weligay ahaan doonaa America First marka horeba danta Mareykanka inaan ka hormariyo danta kale isla markaana Mareykanka oo kaliya. marka Marjorie Taylor Greene iyadana sidaas ayay ku soo jawaabtay maxaa yeelay Trump waxa uu yiri taageeradii waan kala laabtay qofkii la tartamo doorashooyinka soo socda xilliga dhexe ee November sanadka 2026 ka dhacaya qofka la tartamo ayaana taageeri doona. waxa kamid ah xubnaha kale sida hadda Thomas Massie oo Kentucky laga soo doorto isagana ay bag lacag fara badan ay ku bixinayaan sidii xubin kale oo la tartamaysa loo taageeri lahaa Lauren Boebert iyo Nancy Mace dhammaanba xubnaha hadda saxiixay mooshinkan. Trump waxaan ogeyn sidoo kale arbacadii in Lauren Boebert aqalka cad loogu yeero Pam Bondi wasiirka cadaaladda iyo taliyaha FBI ay la kulmeen yiraahdeen saxiixada la laabo laakiin wali aysan la laabanin. marka ninkii Trump waxa uu isku dayayaa wax kasta uu ku joojin karo in Epstein Files shaaca laga qaado maxaa yeelay hadda qarxis wax yar ayaa la soo qarxiyay haddii la soo bandhigo hadda 20,000 ka badan oo email iyo waliba in qoraalaha ayaa la soo bandhigay. marka haddii shaaca laga qaado dhammaan Epstein Files Trump waxa uu yahay inuu xaar dhex fadhin doono ama ceeb weyn uu dhex fariisan doono. sidaa darteed ayuu xitaa wuxuu isku dayi doonaa in codka veto oo qayaxan oo u isticmaalo in la soo bandhigo. waana arki doonaa Trump inta ay la gaarto waliba qoraalkan kale oo kooban ayuu soo raaciyo. waxa uu yiri Marjorie Taylor Greene waa qof traitor ah. wuxuu yiri waxaan la yaabanahay uu yiri Greene sida ay disgrace u noqotay sharaf darro ay xisbiga Republicaanka ee weyn ay sharaf darro ugu tahay. marka labadoodu safaaradihii waa kala qaateen meel xun ayay kala gaartay mana u malaynayo inay isku soo laabanayaan. waan arki doonaa waxyaabaha kale ee ka soo kordho. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.